isu xilqaamida xalinta khilaafaadka iyo xal u helidda xal waara ayaa udub dhaxaad u ah xasiloonida iyo nabadda. bulsho waliba oo heshiis ka gaarta khilaafaad walba oo dhexdooda soo gala waxaa huwaal ah in ay helayaan nabadgelyo waarta, horumar iyo isdhexgal bulsho. haddaba guddiga waxqabadka kaaf ee xaafadda Wamo oo ka duulaya muhiimadda ay nabadda bulshada u leedahay ayaa dadaal dheer kadib soo afjaray khilaafaad u dhaxeeyay dad barakacyaal ah oo wadaag ah isla markaana ku kala nool kaamanka Jibriil iyo Maanamuufo. qoysaskan barakacyaasha ah ayaa waxaa dhowr jeer soo kala dhexgalay khilaaf ka bilowday biyaha ay keenaan booyadaha waxaana ka dhashay dagaal dad badan ay ku dhaawacmeen. guddiga waxqabadka kaaf ee xaafadda Wamo oo ay hay'adda SWSO tababar u siisay xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta bulshada oo maqlay dhibaatada ka dhex taagan qoysaska barakacyaasha ah ayaa gaaray kaamanka Jibriil iyo Maanamuufo waxaana ay wada hadalsiiyeen guddiga labada kaam ee khilaafkii dhexdooda yaalayna laga gaaray heshiis dhab ah. ugu dambeyn waxaa isla goobtaasi lagu gaaray go'aan ah in la dhiso guddi xaliya khilaafaadka arrimaha qoysaska degan kaamamka. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga kaaf ee Wamo Jamaal Cabdi wuxuuna ka hadlay nabadeynta ay dhexdhigeen qoysaska labada kaam kala degan. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Jamaal Cabdi Bashiir, gudoomiyaha kaaf Wamo. maanta isku soo baxaan aan iskugu imaano waxa weeye aan nabadeynayno laba kaam oo maartay degan magaalada Kismaayo. labadaas kaam in badan ayuu dhex maray gacan ka hadal oo u dhaxeeyay labadaas kaam oo ka soo bilowda caruurta maartay hooyooyinka, gudoomiyaasha iyo dhammaan labada kaam inta degan. dhamaanta dagaalkaasna wuxuu ka bilowday oo u sababa ama sababta ugu weyn ah biyaha maartay ay keenaan booyadaha yimaada halkan ayna maartay ku dagaalameen anaka dhaansaneen. dhibaatadaas ayaa waxay gaartay dhammaan dadka kaamka degnaa ay wada saameysay dhalinyaro maartay gudoomiyaashii iyo hooyooyinkii wixii oo dhan. arintaas runtii aad ay noo damqisay waa maartay wayna soo bixisay waan u imaanay maartay wada hadal badan iyo aan dhexdhexaadin badan aan dhexdooda u sameynay. waxaan ku guuleysanay alxamdulillah inaan maartay wada heshiisiino anakoo ka socono kaaf Wamo iyo maartay dadkii odayaashii maartay markaas kaamkooda degnaa intooda badan. waxaan isku afgaranay dhamaanteen inaan maartay nabadda ka wada shaqeyno wixii horena la iska iloobo biyaha iyo sida loo dhaansanayna waxaan ku ballanay inay maartay qolo kasto ama kaam kasto uu maalin dhaansado maalinta kalena ay maartay kuwa kale ay dhaansadaan. dhammaan way naga wada aqbaleen. hadda labadeeda garbood dadka taagan waa labadii gudoomiye ee kaamkaasi waxayna heshiis ku yihiin maartay arintan wayna noo wada saxiixeen waxayna noo ballan qaadeen inaysan dib dambeeto u dhici doonin wixii hadda dhacay. ballanqaadkaas waxaan ka wada haysanaa hooyooyinka, dhalinyarada dhammaantood. labadaas maanta waxaan u soo banbaxna marka inaan xusno maalintaas weyn ay naga qaateen nabadaasi inaan farxadaasi aan isla wada muujino. waxaan go'aan ku gaarnay marka inaan dhalinyarta ayakana aan u sameeyno farxad sidaas oo kaleeta ah. waxaan u keenay qalab isboorti, dharki iyo maartay baloonigii lagu ciyaaray labadaba. dhalinyaradu waa kuwana ayakana aad bay u faraxsan yihiin. maantana waxaan u soo baxnay waa intaas waana maartay ku faraxsanahay inay nala qaataan labada gudoomiyana waa kuwana maartay ayakana way mahadsan yihiin. haddana waxaan hadalka ku wareejinayaa labada gudoomiye insha Allah. labada gudoomiye ee kaamanka Jibriil iyo Maanamuufo ayaa dhankooda soo dhaweeyay dadaalka ay guddiga u galeen xal u helista khilaafaadka ka dhaxeeyay qoysaska wadadega labada kaam. anigoo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxaan aad ugu faraxsan. horta Ilaahay baa mahad iska leh. waxaan haddana aan aad iyo aad aan mahad ugu celinaa Wamo kaaf Wamo baan heshiisiinteena in khilaafaad uuna dhex taagnaa annaga iyo kaam Jibriil Ilaahay baan heshiisiyey waxaana ka dambeeyay kaaf Wamo way mahadsan yihiin. waxaan kaloo ayagana aan mahad u celinaynaa SWSO oo ayagana nagala qayb qaatay barnaamijka noocaasa. ayagana waxaan leenahay walaalayaal dadaalka aad noo suubiseen waad ku mahadsantihiin. middaa iyo mid ka badanna waa idinka sugayna waan idinka rabnaa. khilaafaadkana dhex yaalla wuxuu ahaa biyo aan isku dagaalnay annaga iyo kaam Jibriil. khilaafaadkeena soo wax badan hadda ka horna ayna dhex galeen kaaf Wamo. haddana khilaafaadkeena uu soo noqday khilaafaadkii biyihii in cabaara taagnaa waxaa haddana dhex galay kaaf Wamo waana ku heshiinay waana isku gacan qaadnay waxaana noo suubiyeen annagana aan suubsanay guddi hoosaad oo biyaha xaggiisa noo maamulo tookaysi maalin ah. guddigeenaasna uu dhaamiyo
caruurtana ayna imaanin guddiga uu biyaha noo dhaamiyo khilaaf dambana uuna ka imaanin baan gacanta iskugu qaadnay kuna heshiinay annaga iyo walaalaheen Jibriil. maanta waxaan soo gaaray hay'adda kaaf maanta waxay noo sameysay dib u heshiisiin mar badan waxaa isku khilaafnay biyaha anaga iyo kaam reeman moofo sida aawid anaga haweenka kulli ayaan bilaay badan anaga kacsaneed way heshiinay marka sida aawid gacmaha ayaa isqabsanay hay'adda kaaf ayaa maanta ka dambeysay in anaga heshiino maasha Allah anaga iyo dhalinyaradayna iyo haweenka kulli gacmaha ayaa is haysanaa maasha Allah maanta waa maalin taariikhi abwaana maxamed cabdullaahi gandaal oo ka mid ah abwaanada deegaanada Jubbaland magaca iyo maqaamka ku leh isla markaana ka mid ah guddiga waxqabadka ee Wamo ayaa goobta ka jeediyay gabay kaasoo diirada uu ku saarayay muhiimadda nabadda ay u leedahay bulshada kaam la kala yiraahdo maanan buufo iyo Jibriil naga gudoomo salaan ka bacdi أنا واقف يا قبل ما تقنن ما تدن تأليدا تاريخ لقالك توصلها أبوانك تحناها سمانتا توريدا عداوها كتماتيا يا تحليش خير كجو أولياء الطفت هذا أنا توتيل باسيو أنا يدا ترحانتيو كإلى أن تورها أن دروس توسيتاي كتا تابتا مانسون تريون وشيء دبنا تبتيدي سيدا يقول تقنن هل كأن تبهيجو أن كنت تبوكت إذن كنا تلمان جود إيا حاجة سيتاج قفك سوى تاكتا ودقي ستوبيك قل كان تاكا سوهر إيا روتو سالا ولي توما جيدلي تنيا جيلو وينيو تاني ما كور عدن أذو تاغن عاشا تليفون عايجو سيدي تارلا صودرك شمبرا تقانيو تاهي بولي ما مقشين انت لقاها تاكتين فوري تاي مسيسين ما استويتين بولي تاشي ما يسكر عدن مكوسي هورتوتري وحي تمشلا سعوتاوا طبتاي كو هورتاديو markay geed taraariyale shiniduna tin iyo cilm ka tibsiisay malabkii waatanay ma kugu tiri malabkay tigtigaysay toobka yaalmo miisteen maantana tallaabada Soomaaliya tallaabada saantiireeni sharaf iyo tamadinteen tub kastaba markeedii tartanku waa kubadda nabad iyo taxgelinteen tawfiiq boo aboorkuba dudumada ku taagay maynaga ka tabardaran aboorka maynaga ka tabardaran tawfiiq boo aboorkuba dudumada ku taagay maynaga ka tabar badan tiir bir ma noqona toobiyaha ma qaadna tawfiiq ma isla garanaa tarshi ma isku raacna nabadana ma taxgelina tartankeenu waa kubadda kaam maana moofo iyo Jibriil saasaan isku ognaa